بسم الله kusoo dhawaada janaalka Zaahir Maxamed oo anigu ah Zaahir maanta waxaan qaadan doonaa casharkeena 14aad maadada macroeconomic casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay real exchange rate iyo nominal exchange rate maxaa farqa ka dhexeeya nominal maxaa la lahaa real maxaa la lahaa maxaa lagu qaacidada maxay soo baxdaa iyo qaabka loo measure garay ayaan qaadan doonaa haddaan ka hadalno tusaale ahaan oo kale nominal exchange rate waxaa waaye waa xiriirka oo kale laba currency oo kale markii la fiirinayo tusaale ahaan kale domestic currency iyo in terms of foreign currency oo kale maxaa farqi u dhexeeya oo la rabaa in la ogaado tusaale ahaan oo kale macnaha sarifka labada wadan aa lahaa exchange rate nominal exchange rate marka qaacid ahaan haddii aan isticmaalno tusaale ahaan kale shilin Soomaaliya oo kale iyo dollar oo kale haddaan isbarbardhigno tusaale ahaan kale halka dollar shilin Soomaaliya tan naftigiisa waa gobollada ay kala duwan yihiin laakiin se keliya soo qaadana tan Muqdisho badanaa wuxuu marayaa 24 ama 25 marka saaca marka loo xisaabinayo la dhahayo halka dollar intaas uu yahay Soomaali ahaan Soomaali shilin ayaa waxaa la lahaa waa tusaale waxaa la lahaa nominal exchange rate marka isbarbardhiga tusaale ahaan halka sarif intuusan marayn intaas markaas oo saa camal iskugu sarifayo labada lacagood ee domestic iyo foreign-ka waxaa la lahaa nominal exchange rate tusaale ahaan waxaa noo ah euro per USA dollar meesha ku joogo fila inaad fahamteen real exchange rate-ka imaano real exchange rate-ka kii hore nominalka waxaa la fiirinaya currency-ga laakiinse markii la imaado real exchange rate-ka waxaa la fiirinaya relative-ka oo ka dhexeeya macnaha domestic goods la fiirinaya macnaha waa goods waxa la fiirinayo domestic goods in terms of foreign goods macnaha waxaa la fiirinaya shaygan muxuu ku joogaa wadan hebel haddii loo babadhigo wadankan hebel macnaha isbabadhigid oo xagga shay la gadanayo waa purchasing power okay tusaale ahaan waxaa noo ah European visa iyo USA visa European waxaa kasii qaadanaynaa tusaale Germany maadaama wadan ay fiican tahay two countries Germany iyo USA visa iyo Germany visa tusaale ahaan kale qaacidada oo real exchange rate-ka rabaa inaan ka hadalno qaacidada badan waxaa lagu helaa waxay ku imaadaa waa nominalka oo sarifka caadi ahay nominal exchange oo price-ka lagu dhuftay oo foreign-ka oo loo qeybay price-ka oo domestic-ga okay meeshan example waxaa noo ah visa rabaa inaan ka dhigno as example qaacidadan waxay sheegaysaa in case haddii uu soo baxo kale markii waxaan isku qeybay haddii equal 1 noqoto micnaheedu waxaa waaye waa same price waaye oo wadamada ay kala yihiin haddii 1 soo baxdo haddii 1 ka hoos mitana waxaa waaye wadankaas macnaha boqolkiiba decrease ku sii dhacay macnaha consumption-ka uu ka raqiisaya haddii lagu darana oo plus yahay oo 1 point wax kor u dhacana waxaa waaye increase waaye okay marka tusaale ahaan kale visa hasana price in Germany waa 3 euro waaye kasoo qaad price in USA waa 3.4 dollar waaye nominal exchange rate-kana waxaa kasoo qaadan inuu 3.6 yahay macnaheedu waxaa waaye halka euro waxaa waaye waa 1.36 dollar okay intaas waa fahmaa filaa okay ha imaano qaacidada okay waa real exchange rate ka sana lahaa waa real exchange rate saasan waa loo qoraa sana waa loo qoraa waa isku midkii real exchange rate maxaa lagu helaa waa nominalka oo dhuftay price-ka foreign-ka loo qeybiyay price-ka domestic ah ama Germany waa price-ka Germany kana waa price-ka USA okay qaacidada waxaan ahayd nominalka waxaan ahaa waa 1.36 oo ahaa lagu dhuftay 3 euro oo loo qeybay 3.4 dollar okay waxaa noo soo baxaya markaas 1.2 macnaheedu waxay sheegay in 1.2 wuxuu sheegay macnaha in 1.2 euros oo ah boqolkiiba 20 in aad ku daraysid markii aad joogto
tusaalaha oo kale Europe markaad joogto kale waa in boqolkii 20 aad ku dartaa lacagtii aad ku consume gareyn kartay USA ahayd lacagtii kale hadda as a percentage waaye maxaa yeelay waxaan rabaa haddii ay same ahaan lahaayeen same price ahaan lahaayeen ama as exchange rate isagoo loo fiirinayo waxaan rabaa inay 1 soo baxdo tusaalahaan oo kale hadda sarifka meeqo maroyaa okay hadda aan ka dhigno meeshan oo 3ga waxa aan danka abadno aan ka dhigno tusaalahaan oo kale aan ka dhigno tusaalahaan oo kale aan ka dhigno soo qaad lacag waxa ra iskeenayso ka tusaalahaan ka 2.5 euro 2.5 euro iyo 3.4 waa exactly same maxaa yeelay tusaalahaan kale aan fiirino waa 2.5 oo euro ah marka rabo inaan ogaado inaan dollar helo waxa ku dhufanaa 1.36 saas oo ma marka maxaa soo baxay 1.36 iyo 2.5 euro inaad ku dhufanaba waa 2.5 oo lafte 1.36 waa 3.4 USA dollar marka saamka loo fiiriyo waa same maxaa yeelay adaa u fiirinaysa macna exchange rate saxda ah macna 2.5 iyo 3.4 dollar iyo 2.5 euro iyo 3.4 dollar waa same waa value waa okay aan ka dhigno 2.5 meeshaan ha badalno waa badalina meeshaan 3 helaan waxaan ka dhigaynaa 2 okay aan sameyno 2.5 aan ka dhigno okay markaan ka dhigno 2.5 haddii isku qaybiyo waa 3.26 oo loo dhigtay 2.5 oo loo qaybiyey 3.4 waa exactly waa same waxa waa soo baxay waa 1 soo baxay exactly waxa soo baxay maxaa yeelay labadan dadku dhufto waa 3.4 loo qaybiyo 1 soo baxay macnaha 1 kan waxa waa same value waa laakiin hadda aniga markii waxa la soo baxay 1.2 20% marka cost increase aku kordhayo euro maadaama oo marka aad rabtay qofka inuu USA consumer ku sameeyay markuu rabo inuu ku sameeyo kale Europe Germany waxa uu inuu ku kordhiyo boqolkiiba 20 oo qiimuhu ka bixin jiro inuu ku kordhiyo marka intaas waxa filaa inaad fahamteen I hope na fahamteen haddii aad fahmin kaliya linkii commenti soo qor cashirkan halkan ku soo gabagabeynaa please haddii janaalka cusub tahay subscribe leh haddii ka heshana cashirkan like saar teeda kale waxaan bilaawi doonaa koorsooyin kale oo la xiriira koorsooyinka qaybaha badanaa economiga ah ama researchka ah marka insha Allah waxaan rabnaa inaan madhow bilaabno koorsooyin kale cusub please hadaa rabto inaa la socoto janaalkan ku xirnaa teedka page Facebook-na waa ku xirnaan kartaa badanaa waa soo dhigaa wixii update ah wixii scholarship ah badanaa soo dhigaa insha Allah halkaas ayaan ku sameynaa assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh